بسم الله halkan waa masaajidka al-Hidaaya oo laga hirgeliyay magaalada Wardheer xaafadda koobaad oo maanta xariga laga jarhayo raggan akhyaarta oo rag culimada ahaa ee masaajidka gacanta ku haya qaar kamid ah iyo culimadii masaajidka iyo culimadii magaalada iyo majlis aalihi waxaan ku horeynaynaa oo ku bilaabahay masaajidka iyo xaaladiisa inooga warrami doono Sheekh Jaamac بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى مركه هوري مسجد كالمقعيس وحا لي هذا مسجد الهداية في مدينة وردير مسجد كان إلهي فلقي اسمي اسمه هذا الطعم يالي وحونا صاب بلود اسمي اسمه بدون وحو سعودي سديد بلود كل دوم سعودي بشي صدحات كوية لو تنك هذه لو كنا سالة تمام بلودي أو كبقنا بشي شوال اللوغة دي waxaan dhameystirnay maanta oo taariikhdu tahay labadii bishii 11aad 2019 kuna beegan shantii bishii saddexaad 1441 hijriyada islaamka masjidkan waa masjid ku yaala sida hore loo sheegay xaafadda koobaad ee magaalada Wardheer waxaana dhisay qof muxsin oo ka mid ah bulshada gobolka Doolo ama Wardheer waa masjid إن شاء الله تعالى هذا ما يستيرن مركا وحن أوجسيننا لقب الله ومانت مسجدكم إنه وفرني هاي برشيدي لورد الصي اسمه سنة حقنا وكتام لقضي ويتشرم حيابه هوها كبح سجودها مساعدك وطبيعة أصلا مثلا ديرك أو كلام مساعدك وأود ما يهاي حيام مركا نوع عاصه مركا ولا عن قرشي سكوتشرين باكرة ودمن عيد سيدو كلا جوشنا إن شاء الله برشيد الله يسوي يعني لما يستيرن مركا ديرك دمن وحان وهم بلينا عندي أم كسر وين عدل عندي كقريب قادني لما يستريسا ديرك بساعتك وفرصة بناوي مركز آديات بعد ما هتنتهين برشلونة وحرجنا دونا إن شاء الله تعالى إن يسفع عن أسوأ عمر دونان يعني كرجلنا إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا راح كسر وين قدوميها مجلس كرمى إسلام كيدق ماذا وردار شيخ محمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. halkan sidii hadda ka horba horay loo sheegay waxa weeye waa Wardheer gaar ahaan xaafadda koobaad weeye alxamdulillah saad ka warqabtaan caalamka islaamka in badan oo kamid ah wadanka waxa ka dhacay fitnad diineed fitnadii uu ka nabad ka ilaahay ka magan galay maartay nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا والنبي عليه الصلاه والسلام إله مصيبتنا دينتنا هيلين مصيبه دينيد با ka dhacday wadankan oo masaajidii iyo culimadii iyo wadanka oo dhan lagu fasaadiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo fadligiisa iyo ihsaankiisa uu naga dulqaaday dhibaatadii noocaas oo kala ah muddadii yareyd ee marka isbedelku uu jiray ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo suura galiyay inaan masaajid badan iyo maaragtay madaaris badan baan dhisno oo dadkii maaragtay islaamnimadii iyo sharaftoodii iyo karaamadoodii ay dib soo noqoto saaka oo maaragtay insha Allah ta'ala iyo taariikhdu ay tahay miilaadiga 1441 bishii saddexaad insha Allah ta'ala afarteedii ilaahay hijri taariikhda hijriga ilaahay wuxuu noo suura galiyay masaajidkan oo la dhaho al-Hidaaya oo noo dhameystirmay insha Allah ta'ala masaajidka deyrkiisa uu dhiman yahay laakiin iyo suuliyaashiisa iyo waxyaabo badan iyo gogashii uu dhiman yihiin laakiin dhismihiisii kale uu dhameystirmay in saaka insha Allah ta'ala cibaadadii loogu talagalay saaka albaabada loo furo ila asaasa ilaahay noo suura galiyay waxaan ka codsanaynaa dhammaan caalamka islaamka inay maartay insha Allah ta'ala ay ka qayb qaataan masaajidda iyo kamba maartay waxa u dhiman cid kasta oo maartay insha Allah ta'ala muuminiinta kamida oo u suuroobaysa masaajidkan inay ku cibaadaysatana saaka maartay cibaadadii laga bilaabo xilligan inay u furant inuu albaabadu u furayeen cibaadadii loogu talagalay marka waa ku soo dhaweynaynaa wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وحا إلهي مهدية أن فريتان كان ماتا كسو قيب قلي أنه akhyaartii culimo diinkii boliis arrimaha islaamka gobol iyo degmaba waxaan aad ilaahay ugu mahadinaynaa sida quruxda badan ee magaranaysa juhdiga iyo loogu bixiyay dadkii dhisayna waxaan ilaahay u rajaynaynaa in ilaahay miisaanka xasanaadka aakhiro ugu daro hal fariin baan anigu gudbinayaa fariintaas waxa weeye masaajidku weli waxba ka dhiman waxaan ka codsanayaa ummadda islaamka ee degan magaalada Wardheer iyo cid kastoo joogto muxsiniina inay ku daraan deydkii oo dhiman musqulihii iyo gogoshii assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. هي الدران عبد الله وأضي كم ضياش الدقمة وردر سوره. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حفر حد ما أنت نوع أمارتي مساجد آدي آدو قيمة بدن ولا قد يسي ملاذ وردر حافظ الكوبات
inaan maanta xadhigga ka goynayno waxay ka mid tahay khayraadka iyo cibaadaadka maaragtay waddanka ku soo kordhahaya waana mid aad iyo aad loogu mahadsan yahay ciddii dhistana ajri xasanaad alla ka siiyo iyo ciddii qabanqaabisaba ciddii kale hadda wax ku darsatay ee masaajidka loo deer u baahan gogol u baahan musqulo u baahan iyo wixii kale tasiilaadana ciddii ku darsatana waa cid khayraad helaysa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waa khayraadkii ku soo kordhay gobolka ku soo kordhay oo degmada ku soo kordhay oo xaafadda ku soo kordhay waana masaajid aad iyo aad wanaagsan oo dhismihiisu aad u qurux badan yahay oo lagu cibaadaysanayo saas ayaan ugu mahadinaynaa waa mahadsantihin sheekh xasan daahir maxaad ku daraysaa الحمد لله الحمد لله الحمد لله مساجدكن هدي waa arkaado waa dhameystirmay sida culimadii hore iyo mushaaqdii hore iyo qolii xafiiska arrimaha uga hadleen wuxuu u baahan yahay in dhameystir inta u dhiman baaqiga u dhiman in loo dhameystiro uu u baahan yahay marka dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan inay ka soo qayb qaataan baan ku codsanaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.